الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى ومهد سكاله مدحوينه كحجينك دولة بنتلان حلبانada golaha wakiilada dowladda Puntland wasiirada saraakiisha halka fadhida madaxda iyo mas'uuliyiinta maamul iyo macallimiinba jaamacadda Greenhope ardada qalin jabinaysa waalidiinta iyo marti sharafta ka soo qayb gashay madashan qalin bedelashada ardayda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii sharaf bay noo tahay inaan caawa idinkala soo qayb galo munaasabadan qalin jabinta oo ardayda tirada aad u badan oo halkan laga sheegay ay ku qalin jabinayaan marka koowaad waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardayda qalin jabinaysa oo maanta ay tahay farxadoodii iyo inay gaareen yool ay muddo soo wadeen dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo ilaahay cilmigaada barateen ha idinku anfaco kuwii ka faa'iideysta sii korodhsana ha idinka dhigo sidii horey loo sheegay waxbarashadu waa wax socda maalin bana qofku wax ku darsado korodhsado ma ahan inuu qofku markuu shahaado qaato ama heer jaamacadda ka mida dhammeeyo inuu yidhaahdo waa gaaray yool kastoo aan lahaa waa inaan fursad helaa oo keliya marka waxaan kula dardaarmayaa inaad sii wadataan aqoontiina cilmi baaris samaysaan akhris samaysaan taqaaqus gaara samaysaan wax kororsataan si gaara barashada iyo jaamacadda aan loo dhigan in fursad laga raadiyo isagoo xildhibaana golaha wakiilada ka mid ah inuu barashadiisa watay maantana uu qalin jabiyey si gaaraan isagana mudanaha ugu hambaliyeynayaa guud ahaan ardayda qalin jabisana waa u hambaliyeynayaa mar kale waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo ardayda qalin jabisay in aanu qofku markuu jaamacad dhameeyo keliya tuu meel fadhiisto oran fursad baan rabaa inaan helo inuu la yimaado hal abuur inuusan dhibsan dalkiisa marka la yidhaahdo jaamacad markaa dhammayso fursadii ma jirto dunidan aan ku noolahay meel wax kasta iska diyaarsan yihiin ma jirto kuwa dadku u cararaan waxaa laga bilaabaa strangle nolol adag shaqo hoose iyo dadaal ma aha meel qof walba markuu jaamacad dhameeyo intuu tay soo xirto xafiis uu shaqo tagaa jiro ma jirto adduunyada in ku nool yaan taas laydinku niyad jabin qof kasta waxaa la rabaa inuu wuxuuna hal abuura la yimaado inuu nooc kasta oo shaqaa ka shaqeeyo uusan ka faanin si noloshiisu heerba heer ay ugu korto uusan shaqooyinka kala duwan ee laga shaqeeyo uusan u arkin qaarkood inay yihiin wax hooseeya sida dadkeena hadda ku badan in uu isaga laftiisu isku dayo inuu wuxuun abuuro ma aha inay wax weyn yihiin ma aha inaad meel sare ka bilowdo laakiin waa inaad meelaysan tahay oo nolosha meel ka jirto oo wax soo saar leedahay adigoo dhinaca tacliintaada kororsanaya taasna waxaan kula dardaarmayaa ardayda qalin jabinaysa si kale waa in qofku markuu heerka soo gaaro fakirkiisa nololeed waa inuu siyaadaa markuu qofku jaamacad level gaaro sida loo fakaro iyo markuu iskuul joogo waa kala duwanta markuu jaamacad gaaro qofku heerkan gaaro oo wuxuu kordhaan oo uu aragtiyo iyo aqoomo kala duwan kororsado waxaa la rabaa inuu si global u fakaro maxaa adduunyada ka jira maxaan haysanaa maxaa inaga maqan maxaad awoodi kartaa awooddaada adiga shaksiga maxay tahay ood ku fiican tahay oo tahay inaad kasii miro dhaliso waxyaaba badan inuu isbarbar dhigo taasna waa iyadana waa dardaaran jaamacadda Greenhope-na waxaan rajeynayaa guul inay ku dadaalaan tayada waxbarashada in mas-uuliyadda ay ummadda u hayaan oo ay bulsho soo saarayaan oo wax weyna in ilaahay u fududeeyo
wasaaradda waxbarashada waxaan kula dardaarmayaa inkastoo aanan mas-uuliyiinteeda sarsare wasiiradii halka uga jeedin in ay fuliyaan xeerka tacliinta sare ee baarlamaanku soo saaray in la tayeeyo waxbarashada in jaamacaduhu inay iskaashadaan ay khasab tahay in jaamacadaha iyo tacliinta sare ay ku dhisan tahay nidaam ay khasab tahay si waxbarashadeenu ay isu kabto oo noqoto wax hal jiho u socdo aysan noqon wax ku salaysan competition aan caafimaad qabin oo hadhow dhibaato u keena tacliinta intaasna waa halkaan uga farayaa guud ahaan marti sharafta iyo inta kasoo qayb gashay madashaan waa mahadsan yihiin ardadana